waantan waxaa dib xoriyadiisa u helay wariye maxamed cabdiwahaab abuuja oo kamid ahaa wariyaasha Soomaaliyeed ee ka howlgala warbaahinta madaxa bannaan ee ka aasaasan magaalada Muqdisho. Maxamed cabdiwahaab abuuja ayaa soo deesmadiisa waxaa lagu bixiyay dadaal badan iyadoo ay kaalin weyn ka qaateen sidii loo soo deyn lahaa ururka SGS sidoo kale qaar kamid ah warbaahinta madaxa bannaan ee ka howlgala gudaha dalka Soomaaliya gaar ahaan caasimadda magaalada Muqdisho. Xogayaha ururka SGS Cabdalle Axmed Muumin oo barnaamijka bandhiga marti igu ah ayaa kamid ahaa dadkii doorkaasi ciyaaray ugu horreyn ku soo dhawow Cabdalle Muumin TV Universal barnaamijka bandhiga waxaan Cabdinaasir Ayaale waxaad warbixin naga siisaa Abuuja dadaaladii dheeraa ee uu soo maray sidii dib uu xoriyadiisa u heli lahaa mahadsanid mar kale subax wanaagsan daawadayaasha Universal Maxamed Cabdiwahaab Nuur Abuuja dhowr jeer oo kala duwan la xiray laakiin markii ugu dambeysay waxay ahayd 7 bishii Maarso magaalada Muqdisho lagu xiray hay'adda nabad sugidda xirtay muddo 5 bilood ah oo maalmo yar dhiman ayuu ku jiray xabsiyo kala duwan markii ugu horeysay waxaa lagu xiray xabsi ay nabad sugidda maamusho oo ku yaala madaxtooyada oo loo yaqaano xarunta baarista loo yaqaano muddo yar oo ka horeysana waxaa lagu hayay guri gaar ah oo ku yaala degmada Shibis oo aan xabsi ahayn muddo kale oo 2 bilood ahna waxaa lagu hayay xabsiga dhexe ee magaalada Muqdisho muddadaas muddo kamid ah garaac iyo jirdil iyo dhibaato loo geystay laakiin muddadii xabsiga dhexe uu ku jiray way ka duwaneed xaaladda qof maxbuus caadi ayuu ahaa qareennadiisa markii ugu horeysay waxay awood u yeesheen markii xabsiga dhexe la keenay inay la kulmaan familkiisana markaas ay awood u yeesheen la kulmaan annagu laftirkeena markaasaan awood u yeelan inaan la kulanno oo aragno gaar ahaan xaaladiisa caafimaadka iyo in qareennadiisa ay la kulmaan ayaan ka shaqaynaynay dacwad ayaa lagu soo oogay ugu dambeyntii 22 bishii 7 laakiin si rasmi ah 3 bishii Agosto ayaa dacwadaas loo soo bandhigay waa ku dhawaad 5 bilood oo uu xirnaa ayaa la soo bandhigay eedeymo 3 qodob ka kooban oo midka koowaad uu yahay khiyaano qaran midka labaadna uu yahay dil ugu eeday midka saddexaadna uu yahay ka tirsanaan argagixiso dhammaan waxaas oo dhan waxaa la horgeeyay maxkamadda ciidamada way dhigaysatay 3 bishii Agosto kulan furan oo annagu aan ka qayb galnay ay maxkamadda ciidamada qalabka sida darajadeeda koowaad ku dhigaysatay sida aad la socotidna ugu dambeyntii 3 maalin kadib maxkamadda go'aan ku dhawaaqday waxay tuurtay dhammaan eedahaas loo haystay oo ay ku tilmaantay waxba kama jiraan iyo in eedahaas lagu waayay Maxamed Cabdiwahaab xukunka warqadda oo maxkamadda ay nala wadaagtayna waxaa ku qoran inuu yahay free oo qof xor ah isla markaana wax dambi ah aan lagu helin Maxamed Cabdiwahaab Abuuja muddo 5 bilood oo xirnaa Cabdalle goormuu dadaalkaasi bilowday lagu soo deynayo maalintii ugu horeysay Maxamed Cabdiwahaab Abuuja la xiray Maxamed waxaan diyaarad ka soo raacay magaalada Hargeysa anoo ku sii socda magaalada Addis Ababa aeroboortka Hargeysa anoo ku jira oo diyaaradda wali ay runway-ga taagan tahay ayaa la ii soo sheegay xarigiisa saacadaas laga bilaabo ilaa iyo maalintii la soo deeyay Maxamed Cabdiwahaab maalina kama nasan in arrintiisa aan ka hadalno sidii xorriyadiisa uu heli lahaa meelihii aan marnay oo intii kiiska uu socday waxaa kamid ah in warbaahinta gudaha muddo badan aan kala hadlaynay ololaha ku saabsan Maxamed Cabdiwahaab Abuuja in xorriyadiisa u baahan yahay inuu cadaalad u baahan yahay qofka muwaadinka oo Soomaaliyeed xitaa haddii la tuhmo waa in uu helaa cadaalad oo sharciga lagu kala baxaa taas waa mid aan mar walba xoog saaraynay muddadii ay socotay waxaan rabaa in halkan u mahadceliyo warbaahinta gudaha ee Soomaaliyeed iyo wariyaasha Soomaaliyeed qaybihii weynaa ee ay nagala qayb qaateen waxaan rabaa sidoo kale inaan u mahadceliyo saaxiibadeena gudaha iyo dibadda gaar ahaan hay'adda xuquuqda aadanaha ee Robert F Kennedy oo nala diyaarisay qoraal rasmi ah oo petition af Ingiriiska lagu yiraahdo oo annagoo ka kooban SGS iyo ururka Sooma iyo RFK iyo qareennadiisa aan u gudbinay guddiga joogtada ee qaramada midoobe u qaabilsan tacadiyada ay ka mid yihiin dadka lagu xadgudbo sida aan u sheegnay horeyna u sheegnay dhowr jeer Maxamed Cabdiwahaab Abuuja wuxuu wariyaasha kale kaga duwanaa waxay ahayd qof suxufi ah oo la dulmiyay inuu yahay waxa ka darneed in uu ka yimid qowmiyad Soomaaliyeed oo ah qowmiyadaha markastaba lagu dulmo nidaamka dawladnimada Soomaaliya dhibaato badan lagu geysana sida darteed taas waxay nagarasiisay ama nagaarsiisay ama awood noo siisay in
aan gaarno qaramada midoobay gaar ahaan golaheeda qaabilsan waxa la yidhaha arbitrary detention ama dadka sida sharci darrada loo xiro oo petitionkaas nala diyaariyey si aan cadaadis ugu saarno dowladda Soomaaliyeed in ay muwaadinkaas lagu xadgudbaayo banaanka keento oo ay cadeyso wax lagu haysto waxaan rabaa inaan u mahad celiyo maxkamadda ciidamada qalabka sida oo iyada dadka ay ka aaminsanaayeen inay tahay meel dadka lagu dulmo laakiin markii ay maxkamaddu aragtay waxaan meesha la keenay iyo dhibaatada socota gudoomiyaha maxkamadda Shuute uu go'aan ku gaaray inuu arrintaasi dhab u baaro ka baaraan dego cadeymahana maaragtay uu raadiyo xilka iska saaray inaan uga mahad celiyo rabaa ugu dambeyntii cadaaladii uu ku dhawaaqay waxaan rabaa sidoo kale inaan mahad celiyo Amnesty International oo kaalin weyn arrintan nagala qayb qaadatay arrinta Abuja shaki badan laga muujiyay dad badan ka cabsaday gudaha iyo dibadba laakiin Amnesty International waxay ku dhiiratay inay nagala shaqeyso arrintan oo Abuja cadaalad loo helo hay'adda kale guddiga difaaca wariyaasha oo CPJ la yiraahdo oo ayaguna habeen iyo maalin arrintan nagala shaqeynay aan marnaba naga nasan marnaba naga daalin ayaan rabaa inaan maaragtay uga mahad celiyo sidoo kale muddadii Abuja uu xirnaa waxaana soo wajahay handadaad tiro badan waxaana soo wajahay cabsi gelin badan waxaa khatar la geliyay ammaankeena annaga iyo dadkii kale oo nagala shaqeynay intaas iyadana waxaa jira dad kale oo dhinaca ammaanka nagala shaqeynay ayaguna waxaan rabaa inaan mahad celiyo anoon halkan magacyadooda ka sheegayn sidoo kale waxaa jirta in laga caawiyey maxamed Cabdullaahi Abuuja muddadaas uu xirnaa waa muwaadin Soomaaliyeed aabbo weeyaan qoys horjoogo u ahaa uu shaqaysan jiray reerkiisa waxaa ku dhacay biil la'aan waxaa ku dhacay maaragtay waxaa ku adkaaday noloshii ay ku noolayeen sida gurigii kirada ay waxay deganaayeen waxaa jira dad iyaguna naga caawiyey inaan reerkaas biilka ka go'in oo kira aan lagu yeelan ayaa iyaguna naga caawiyey iyagana waxaan rabaa inaan mahad celiyo si gaar ah hay'adda CPJ waxaan rabaa inaan u mahad celiyo dhammaan dadka kale ama safaaradaha aadan ama dowladda Soomaaliyeed ka tirsanaadeen ee dulmiga diiday oo habeen imaan nala shaqeynayay oo iyaguna mar walba maarta isku dayay in muwaadinkaas uu cadaalad helo ogaana in dulmi lagu haysto sidoo kale waxaan mahad celinayaa qareenadii waqtiga badan geliyay ku dhiirada in dacwadaas ay galaan oo maxkamadda ay hor istaagaan xitaa iyagoo og in maarta arrintan ay tahay arrin khatar u keeni karto amnigooda xaggiisa khatar ugu keeni karto waxaas oo dhan mahad celinaa ugu dambeyntii maanta maxamed waxaan rabaa inaan uga faa'iideysto Abuja waa xur laakiin xariga Abuja iyo soo deyntiisaba laba shay in laga barto weeyaan midda koowaad waxa way dowladda Soomaaliyeed inay ka barto in hay'adaheeda ammaanka aan sharciga ka sarreyn in qofna aan lagu xadgudbin oo muwaadin ah oo aanan la dulmin gaar ahaan suxufiyiinta inaan arrintooda maaragtay eedaynta loo soo jeedinayo ku saabsan argagixisanimada in aysan noqon wax mar dambe soo noqdo oo dowladda ay wax ka barato arrintan arrinta labaad oo meesha muhiimka ah ku jirtan waxay tahay suxufiyiinta inay iyaguna ogaadaan oo ay gartaan in mar kasta oo dhibaato lagu sameeyo sharciga ay aadi karaan ay ku kala bixi karaan waan ogahay ku kalsoonaanta sharciga iyo cadaaladda waddankan aad bay u hooseysaa gaar ahaan maxkamaduhu waa meel maaragtay dadka Soomaaliyeed aanay kalsooni ku qabin bataatanba taasi waa inaan cadeynaa oo hoosta ka xariiqnaa waa meel dadka lagu dulmiyo dadka Soomaaliyeed gaar ahaan hooyooyinka iyo dadka dulman maalin walba oynayaan maxkamadaha waxaan ku arkay intii aan socday arrimo aan loo dulqaadan karin laakiin waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed gaar ahaan wariyaasha u sheego in sharciga inay isku difaaci karaan inay bartaan gaar ahaan arrinta maxkamadda ciidamada oo sidii laga meeleysanayay aan ahayn oo maxkamadda ciidamada ay noqotay meel maaragtay dacwadaha siday u dhageysato iyo processka ay marsiiso runtii aniga iila muuqday mid lagu qanci karo iila muuqday inay iyaguna wariyaasha ogaadaan labadaas arrimood aan rabaa in 10 ay noqdaan oo laga barto waa tahay Cabdalla adduunka markaad fiiriso qofkii mar la soo eedeeyo muddo xabsi ku xirnaado lagu waayo wax dambi ah waxa u dheer qofkaas marka xorriyadiisu helay in uu helo magdhow ilaa hadda ma jira meel lagu cadeynayo ninkaas in la siiyo magdhow maadaama wixii lagu soo eedeeyay ay noqdeen wax kama jiraan waa sax su'aal aad u fiican qof kasta oo la dulmiyo sharciga markuu maaragtaa la horgeeyo la cadeeyo inuusan dambi lahayn muddadii uu xirnaa ama dulmiga lagu haayay waxaa ka dhalata laba shay midda ugu horeysa dadkii dhibaatada geystay in ay sharciga iyo cadaalad dib ula xisaabtamaan oo ay baaraan meeshii wax ka qaldameen si qaladkaas oo mar dambe muwaadiniinta ugu soo laaban arrinta labaadna waxay tahay in qofka muwaadinka ee lagu xadgudbay sida Abuja oo kale uu helo magdhow waa laba arrimood oo aan maanka ku hayno oo aan aad u fahamsanahay kana baaraan degayno anoo og duruufaha jira ay ka mid tahay midda amniga ay ka mid tahay la tashiga aan la sameynayno qoyska Maxamed Cabdullaahi Abuuja la tashiga aan la sameynayno qareenada iyo suuragalnimada in Soomaaliya ay ka jiri karto cadaalad noocaas u shaqeysa ayaan ka baaraan degayna arrimahaas waxaan se ogahay
oo ay dow inay tahay abuujana uu xaq u leeyahay in labadaas shayba uu helo oo ah dadkii dhibaatada u geystay lala xisaabtamo labo in maaragtay uu helo magdhow uu helo labadaasba xaq buu leeyahay laakiin waxaasoo dhan maxamed waxay ku xirnaan doonaan sida maaragtay ay qoyska iyo abuujo laftirkiisa waa qof weyn oo maaragtay isaga laftirkiisa taladiisa isaga ay ka go'do in maaragtay loo daayo sida uu arrintan u wajahayo arrinta ku xigtana waxay tahay qareenadiisa iyaguna inay arrintan bal wax ka yidhaahdaan laakiin annagu maadaama xoogga aan saarayn inuu abuujo banaanka yimaado oo uu cadaalad helo alxamdulillahi rabbil caalamiin aan taas ku guulaysanay waxay noo tahay farxad weyn waxaana rabnay in fariintaas aan u dirno suxufiyiinta Soomaaliyeed inaan annagoo joogna aanan lagu xadgudbi karin waana muujinay taas waan ku guulaysanay ilaahay ayaanu ku mahadsan cabdallah markaan fiirino warbaahinta iyo wariyaasha markii la dulmiyo dabcan waa loo doodaa waa loo dagaalamaa laakiin iyaga marka ay dambiye ay galaan oo kale ama qaladad ay sameeyaan maxaa ay xakameynaya maxamed adoo mahadsan ma garan karo ereyga dembiyo sida aad maaragta ugu isticmaalayso ama aad ula jeedo ma garan karo sababta waxaan aaminsanahay dembiga inuu dembi noqon karo keliya marka maxkamad inta la hortago la cadeeyo qofka waxa uu sameeyey inay dembi tahay marka waxaan aaminsanahay qof kasta inuu yahay bilaa dembi ilaa ay maxkamad ku cadeyso inuu dembi galay suxufiyiinta Soomaaliyeed waxay soo mareen marxalado kala duwan dadka ugu suxufiyiinta ee dalkan ka shaqeeya waxaad ogtahay inay yihiin 80% da'doodu ay ka yartahay 25 jir ay ka yartahay taas macnaheedu waxay tahay badankood muddadii burburka kadib ay dhasheen warbaahinta casriga ay hadda lagu shaqeeyeen waa warbaahin koraysa oo kobcaysa oo meelo badan adduunka laftirkooda waxay maalin walba ku jiraan sidii ay u sameyn lahaayeen sharciyo qaybna ka ah in dadka ay wariyaasha ah ay ku dadaalaan anshaxa inay isticmaalaan sidoo kalena lagu maaragtay sameeyo nidaam dadka caadiga ah iyo suxufiyiinta ku kala bixi karaan waxaan rabaa in la kala saaro laba shay dadka caadiga ay bulshada ka midka ah ee haysta telefoonada ama isticmaala baraha bulshada waxyaabaha ay soo bandhigaan oo aan u aqaan aniga inay yihiin bloggers ama citizen journalism iyo dadka suxufiyiinta ah ee journalistayaasha loo yaqaano ee nidaamka caadiga wax marsiya ee ay qalabka warbaahintu maaragta ku soo bandhigaan labada dadku inay kala bartaan dad badan oo ku dooda in wariyaashu ay qalad sameeyaan waxay isku qaldaan labadaas ay isku qaldaan dadka citizen journalismka saxaafadda bulshada loo yaqaano waa dadweynaha Soomaaliyeed ama dadweynaha kale caadiga ee telefoonada smartphones ka haysta internetka isticmaala ayagu wax soo bandhiga dadkaas qof walba waxa uu soo qoray isaga mas'uulka ah waxa uu soo bandhigay isaga mas'uulka cidii rabtay inay cabasho ka samaysatana waxay maraysaa nidaamka caadiga ee lagu talagalay waxa ay soo haray suxufiyiinta waxay leeyihiin xeer ay ku dhaqmaan oo la yiraahdo xeerka anshaxa habdhaqanka suxufiyiinta oo tilmaamaya waxyaabaha suxufiyiinta ay qorayaan ama soo bandhigayaan waxaan aaminsanahay suxufiyiinta in maalin walba xeerkaas loo akhriyo waxaan aaminsanahay suxufiyiinta in tababarada kala duwan ee la siiyo ee maalin walba dhaca inay ugu jirto qayb ka mid ah ku dhaqanka anshaxa qayb badan oo suxufiyiin ah oo gadaal ka soo gashay saxaafadda oo aan xeerkaas ama akhrisan ama faham badan aan u haysan inay jiraanna waan qirsanahay hase yeeshee taas marnaba ma marsiyo loogama dhigi karo in la isku dayo in suxufi ama qof suxufi ah ama qof ka tirsan bulshada saxaafadda ayaa khalad sameeyay in loo isticmaalo in lagu xakameeyo xaqii ay bulshada u lahayd inay xogta helaan suxufiyiintu waxay ka shaqeeyaan bulshada inay siiyaan xogta ay u baahan yihiin taasna waa inaan marnaba aan khatar la gelin oo aan loogu marsiyoonin wariyaasha ayaa khalad geliya haddii ay jirto cid uun tabanaysa wax ay wariyaashu sameeyeen waxaan u furan mar walba inay soo bandhigaan oo ay soo keenaan oo cabashadooda sameeyaan maalin walbana cabasho noocaas oo kale xalinaa aniga kula hadlaaya labadii bilood ee u dambeysay ilaa 4-5 cabasho oo dad kala duwan iga soo gaareen oo halkan ka sheegaynin ayaan xaliyay oo qayb ka mid ah saxaafadda ay ka qabeen marka arrimaha noocaas oo kale loo xallin karo marnaba ma qabo in maxkamad iyo ciqaab ay ka dhalato gaar ahaan arrinta hadda taagan waa halis waa arrinta ku saabsan adeegsiga xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ee loo adeegsanaya suxufiyiinta si gaar waxaan rabaa inaan kugu sheego Maxamed markii abuujo maxkamadda la saaray qodobada la isticmaalay waxaa ku jiray qodobka koowaad faqradiisa 64 xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida maxamed cabduha abuujo waa suxufi ciidan ma aha inkastoo eedaynta lagu eedeeyay ay qayb ahaan noqonayso mid ciidamada xiriir la yeelan karta haddana waxay la yaab ah in qodobka koowaad oo xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida uu sheegayo waxa la yiraahdo dambi khiyaano qaran arrimaha noocaas oo kale halis waaye waxaan rabaa inaan meeshaas uga faa'iideysto xeerka saxaafadda ee hadda madaxweyne farmaajo hor yaalo ee wasaaradda warfaafintu ay soo dhoobtay waxaa ku jira qodob isna sheegaya arrimo ku saabsan amniga qaranka faafinta beenta iyo arrimo sidaas oo kale ah oo aan waxba ka duwaneen waxa abuujo lagu eedeeyay khiyaanada qaran oo la midka ah xeerkaasna waa ka digaynaa in saxaafadda loo isticmaalo waxaana intaas raacinaya si loo kala baxo si xal loo helo
si arrimaha hadda ay weydiisay oo ah haddii ay jiraan qaladaad ee wariyaasha sameeyaan in la xalliyo xalka wuxuu noqon karaa in la sameeyo golo dhexe golahaas oo ah golaha warbaahinta Soomaaliya ama golaha saxaafadda Soomaaliyeed in la sameeyo oo madax bannaan ka madax bannaan wasaaradda warfaafinta ka madax bannaan madaxtooyada ka madax bannaan golaha xukuumadda oo u dhaxeeya saxaafadda madax bannaan iyo bulshada iyo dawladda u dhaxeeya kaas ayaa noqon kara meesha lagu gorgortamo lagu xalliyo qaladaadka jira haddii ay jiraan cabashooyin bulshada qiimaha lagu dhageysta sida wadamada kale adduunka bay u xaliyaan annagu tamarrub ku baaqeen aan soo jeedinayna waa taas waxaan se dareemaynaa in wasaaradda warfaafintu ay aaminsan tahay in golahaas laga dhigi karo gole iyada hoostaga sida agaasima waaxeed ka tirsan wasaaradda warfaafinta absolutely marnaba ma dhacays marnaba ma aqbalayno taas inay dhacdo waa inuu noqdaa gole baarlamaanka uu xeerkiisa dejiyo miisaaniyadiisa sameeya ka madax bannaan xukuumadda wasaaradda warfaafinta aan jeebka ugu jirin madaxtooyada aan jeebka ugu jirin u dhaxeeya saxaafadda iyo dadka weynaha Soomaaliyeed u dhaxeeya meeshaas marka cabasho marka qof uu cabanayo maaragtay bulshada kamid ah halkaas uu tagaya cabashadiisa la dhageysanaya suxufiga ama idaacaddii ku cabanaya loo yeeraya waxa la fiirinaya waxa la isku haysto cidda markaas qaladka la saaraya laakiin marka qori iyo booliis iyo nabad sugid ay wariyaashii bursanayaan oo maxkamadda ciidamada lala aadayo oo xabsi 5 bilood la gelinayo ama 6 bilood sida gurbiye oo kale loo xukumo lagu xukumayo bisabab kaliya inuu qoray qormo ku saabsan madaxweynaha inuu qoray waa arrin aan Soomaalida casriga la jaan qaadi karin waa arrin dastuurka qarankan u degsan aan marnaba meel ka soo gelin gaar ahaan xadgudub ku ah qodobada 18 iyo 32 dawladda Soomaaliyeed dadka hadda jooga iyo kuwa imaan doonaan waxaan ugu baaqayaa in ay ogaadaan in xorriyadda hadalku ay tahay dastuuri aan la taaban karin cidda isku dayda inay taabatana sharciga la aadi doonaa annagoo dhacsanayna waajibka dastuuriga ee na saaran oo ah ama sheegaya haddii dawladda ama dad kamid bulshada ay ku xadgudbaan dastuurka annaga oo muwaadiniin waxaa noo furan inaan maxkamadda tagno oo dastuurka si loo ilaaliyo aan dacwad furno cabdallah mararka qaar ma u malaysaa wariyaasha qaar iyo warbaahinta inay yihiin dad iyaga isla qabweyn oo awoodda dawladda mid ka weyn isticmaalaya maya uma haysto wariyaasha Soomaaliyeed waxaan dareensanahay in awoodii ay lahaayeen inaysan isticmaalin wali si sax aysan u isticmaalin saxaafaddu dunida waxay ka tahay awoodda afraad bal meelaha qaarkood waxaa looga yaqaan inay tahay awoodda koowaad taas macnaheedu waxay tahay awoodda ilaalisa ama ku ilaalisa dadka la doortay ee annagana matala inay si sax ah kursiga aan u dooranay noogu adeegaan adeegii aan uga baahnayn ayna siiyaan si ay taas u dhacdana waa in awoodda saxaafadda la kobciya markasta waxaa aaminsanahay weli kaalin badan oo suxufiyiinta Soomaaliyeed ay qaadan lahayn inay maqan tahay ay kamid tahay la dagaalanka musuqmaasuqa inay soo bandhigaan ceebaha iyo dhaliilaha taagan oo ay kamid tahay amni darrada sababta wax looga qaban lahay ay kamid tahay sababta canshuurta dadka laga qaado wax loogu qaban lahay wadooyin loogu dhisi lahay ee adeegyo loogu siin lahay sababta gargaarka dibadda nooga yimaada ee dadka caalamka ay nagu taageereen haddaan nahay Soomaali na loogu adeegi lahay ee jawaabka loogu shubanayo waxaas oo dhan saxaafadeena la rabay inay baarto soo bandhigto wali waxaan ogahay suxufiyiintu inay yihiin kuwa ka gaabinaya doorkaas inay qaataan sababta jirtana waa iska caddahay waa amni darrada suxufiyiinta haysata waxaan dareemayaa in suxufiyiintii arrintaas sameyn lahaa dalka ay ka cararayaan oo hadda ay ugu dambeysay dhowrkii bilood ilaa 4 bilood u dambeysay tiro kamid ah suxufiyiinta Soomaaliyeed ay dalka ka baxeen oo ay taageen meelo kamid ah Turkiga Greega iyo wadamo Yurub ay galeen sababta ay cararaay ma ahayn dalkooda necab yihiin waa kaliya khatar amni oo dalkooda ka soo wajahday dadka sameynayaan ay yihiin dadkii iyaga loogu talagalay inay markaa ilaaliyaan marka anigu ma qabo Maxamed in suxufiyiintu ay awood dheeraad isticmaalayaan ama ay ka badbadinayaan ma qabo waxaan qabaa suxufiyiintu inay yihiin dulmaanayaal in kaalintoodii wax ka maqan tahay oo boqolkiiba 50 wax ka yar awoodooda isticmaalayaan aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa xogayaha ururka SGS Cabdalla Axmed Muumin oo marti inoogu ahaa barnaamijka bandhiga TV-ga Universal